waxaa maanta si rasmi ah hangarka afisyoona uga furmay shirkii golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed kaasoo shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Hirshabeelle علي عبد الله حسين علي جودلاوي يسيدو كله مدحوينها دول الجولات كجلمودك أحمد عبد الكاري قرقر وعسيدو كله إسنا كلن كقرب جلي قدوميها جوال كبنادر أنا بدو مجال المقدشو عمر محمد محمود عمر فيلش دمان شركاس وحوس عندنا معلومة صوص عدا سر رسمي يعني ما أنت وفرمي وحا maanta laga wada hadlayay ajandayaasha shirka maalmaha uu socon doono si weyn ayaana la isku afgartay ajandayaasha shirka maalmaha uu socon doono runtii shirkan waxa looga arisan doonaa arrimaha shirkii hore lagu socon lahaa dhamaystirka aqalka sare oo horay maaragtay dawlad goboleedyada ay u soo dhamaystireen qaarna ay dhiman yihiin sidoo kale iyo sidii loo raadin lahaa lacagaha aan weli la helin lagu qabanayo doorashada iman doonta ee aqalka hoose ee Soomaaliya runtii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ku amaanay dawlad goboleedyada ilaa hadda soo dhameystiray aqalka sare sida ay u ilaaliyeen qoondada haweenka isagoo sheegay in sidaas si lamid looga baahan yahay in ay ilaaliyaan qoondada haweenka ee 30% doorashada golaha shacabka iman doonta